madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo sii wada kulamadii iyo wada tashiyadii uu la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa afurka la qaatay qaybaha kala duwan ee ganacsatada dalka wuxuuna madaxweynuhu uga mahad celiyay kaalinta muuqata ee ay ku leeyihiin dib u dhiska hanaanka dhaqaale ee dalka madaxweynaha ayaa tilmaamay muddadii uu xafiiska joogay in uu mudnaan gaar ah siiyay ilaalinta ammaanada shacabka Soomaaliyeed taasi oo horseeday horumarka dhaqaale ee dalku sameeyay iyo in ictiraaf caalami ah ay helaan isla markaana ku qancaan hay'adaha kala duwan ee dhaqaalaha dunidu hanaanka maaliyadeed ee dalkeena xaqiiqatan intii aan joogay halkan ogtihiin oo wada shaqeyn aad u ayaa lahayd ma maqal wax cabasho ah oo dhankeeda ka imaanaya waxaan aaminsannahay inaad ku qanacsan tihiin wada shaqeynteedii aad u weyn muddooyinkii 4 sano iyo xoogaa ahayd insha allah waa sii wadayna ganacsatada Soomaaliyeed oo madaxweynaha warbixin dhameystiran ka siiyay xaaladda ganacsiga dalka ayaa madaxweynaha ku bogaadiyay tanaasulka uu u sameeyay nabadda iyo xasiloonida dalka iyo mudnaanta gaarka ah ee uu siiyay taasi oo xoojinaysa horumarka ganacsi ee ay sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka inta badan adduunka ganacsatada waxa la dhahaa taxi-beer waa lagu faanaa qofka canshuur bixiyaha waxa alxamdulillah dawladdeena dhaqaale badan ma hesho laakiin intii yarada heshay waa hadda waxa farxad ah in mushaaraadkii shaqaalaha iyo mushaaraadkii ciidanka in la dhameystiray oo ay joogto u helaan ganacsatadu si gooniya isu xilqaantay oo intaas kaliya taxi-beer kaliya kuma ekaanin is xilqaan oo wadooyin ay wax ka dhisaan oo maxaan ku raahdaa sida ayaan madxafka iyo maktabadda iyo meelo badan ay gacan ka geysteen kulanka oo sidoo kale goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiiru dawlaha wasaaradda ganacsiga ayaa la isla qaatay horumarka iyo mira dhalka uu sameeyeen dadaaladii wada jirka ahaa ee ganacsatada iyo dawladda Soomaaliyeed oo ay u qaadeen dib u dhiska dhaqaalaha dalka xiriirka ganacsatada Soomaaliyeed ee la leeyihiin dhigooda caalamka shaqo abuurka iyo sidoo kale dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka waxaan sheegayaa madaxweyne hortaada ka sheegayaa haddii dhaqaalaheenu wanaagsanaaday haddii ciddii wax inooga baahdnayba wax inooga aan bixinay waxaan ugu mahadnaqaynaa ragga iyo dumarka halkan soo fadhiya I think waa dumar waa rag meedhan weeyaan ragga odayaasha halkan fadhiya oo aanay maanta isku kaya horreyn aan in badan arrimaan ka wada hadalnay runtii waxay ahayd raggana soo daadihiyey ee maanta halkana soo gaadhsiiyey ee 4 sano iyo dhiidhi nala soo shaqeynay bay yihiin aad baan ugu faraxsanahay caawin halkan wada joogno ka wada hadlayno cashuurta dakhliga aan inagu ku faano waa dakhliga halkan ka yimaada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in wada jir bulshada iyo dawladda Soomaaliyeed ugu istaagaan dhameystirka dhammaan guulihii dalku gaaray 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed mar kale uga mahad celiyay kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dhaqaale ee dalkeena waa mahadsantihiin mar walba runtii contributionkiina iyo sida aad dawladdii timaada mar walba aad garab siisaan maxaa yeelay idinkaa dawladdii ah annagu waxaan haysaan horada kuu sheegay dad maamulayaal ah maalmo jooga maalmahaas in loo baahan yahay wada shaqeyn ganacsatada iyo dawladdu inay jirto oo idinkuna la jeclay dawladda ka hayso dawladduna ay business friendly tahay oo iyadu naftigooda wada shaqeyn aad u ee la leedahay ganacsatada